Madaxweyne kasta oo Afrikaan ah waxa uu ka taxadiraa amnigiisa gaar ahaan marka uu socdo. Ku soo dhawaada janalka Dhacdo Tube. Halkan waxaan idinkugu soo gudbin doonaa 10 madaxweyne ee Afrika oo lagu ilaalada badan yahay xilliga ay socdaan. Madaxweynaha tobnaad ee liiskan ku jira ee ilaaladiisu aad ku adag tahay waa madaxweynaha waddanka Zimbabwe Emmerson Mnangagwa. Waxaa nambarka 9 ku jira madaxweynaha waddanka Cameroon Paul Biya oo si weyn loo ilaaliyo. Waxaa nambarka 8 ku jira ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Dr. Abiy Ahmed oo asagana ka mid ah madaxda sida weyn loo ilaaliyo. Waxaa nambarka 7 soo ciriirsaday madaxweynaha waddanka Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Waxaa nambarka 6 ku jira madaxweynaha waddanka Rwanda Paul Kagame oo asagana ka mid ah madaxweynayaasha sida weyn loo ilaaliyo. Waxaa nambarka 5 ku jira madaxweynaha waddanka Tanzania John Magufuli oo asagana gawaarida lagu galbiyo ay yihiin kuwo cajiib ah. Waxaa nambarka 4 soo galay madaxweynaha waddanka Ghana Nana Akufo-Addo oo asagana si cajiib ah loo galbiyo xilliga uu socdo. Waxaa nambarka 3 soo galay madaxweynaha waddanka Nigeria Muhammadu Buhari oo ka mid ah madaxweynayaasha qaaradda Afrika. Waxaa nambarka 2 ku jira madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Muigai Kenyatta oo asagana si cajiib ah loo ilaaliyo. Halka madaxweynaha u dambeeya sida weyn loo ilaaliyo asagana galbintiisu cajiibka tahay uu yahay madaxweynaha waddanka South Africa Cyril Ramaphosa. daawadayaasha qiimaha leh waxaan idin ka codsanaynaa in channelka Dhacdo Tube aad rukumataan fiidiyoada aan soo gelin doono anagoon diiradda saarayna hadba dhacdooyinka caalamka kuwada xiisaha si aan ku dhaafin dhacdooyinkaasina waxaan ka codsanaynaa inaad rukumato aad subscribe ku dhufatid. mahadsanid.